ciidanka xoogga dalka oo al-shabaab dib ugu qabsaday deegaan hoostaga magaalada Baydhabo ayaa warbixintan ku eegaya balse daawade haddii aad soo booqatay bogina hoggaanka wararka waxaan ka codsanayaa inaad nasoo follow gareyso sidoo kale tan muuqaalkan aad like gareyso kaba si wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dib ula wareegay deegaanka Goof Gaduud Buurey ee gobolka Bay oo haddii toddobaadkan ay dagaal kula wareegtay al-shabaab sida ay hoggaanka wararka u xaqiijiyeen dad ku nool deegaankaas. ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa shalay gudaha u galay deegaanka waxayna dib u degeen xeryahoodii ay axadii soo baneeyeen. al-shabaab ayaa la sheegay inay isaga carartay deegaankaas markii ay ka war heleen in ciidanka xoogga dalka ay ku soo wajahan yihiin oo duulaan ay ku soo yihiin Goof Gaduud. ciidanka xoogga dalka oo axadii 23 bishan soo baneeyay deegaankaas kadib dagaal kooban oo al-shabaab ay kula galeen ayaa shalay lagu amray inay u xoreeyaan Goof Gaduud Buurey. dadka deegaanka oo mid ah istiraatiiji ayaa 30 kilomitir kaliya u jira magaalada Baydhabo oo caasimadda uu maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamulada ay dhibaatooyinka ugu badan ku hayso al-shabaab. markasta waxaa dhacda in deegaanka Goof Gaduud ay isku badbedelaan ciidamada dowladda iyo al-shabaab waxaana taas u sabab ah goobta istiraatiijiga ah ee deegaankaas uu ku yaalo sida ay qabaan khubarada ammaanka. wuxuu ka mid yahay deegaanada laga difaaco magaalada Baydhabo waxayna bulshada reer Koonfur Galbeed dareemaan qalqal xoog leh markii Goof Gaduud ay u gacan gasho al-shabaab taasoo sababta in markasta ciidan lagu amro inay dib u xoreeyaan deegaankaas. guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed waxaa culays daran ku haysa al-shabaab oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu soo adkaadaan dagaalo culus oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolada Hirshabelle iyo Galmudug.